أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله إله mahadiis hadaan markale hawada kusoo laabanay anagu wanaag isfareen Maxamed iska reebayna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryay dhamaanteenba Ilaahna naga dhigo kuwa ku intifaaca. Waxaan u socotay xalaqad aan kaga hadlaynay risqiga xalaasha ah. Maxaa yeelay waxyaabaha qofka muslimka uu ku badbaadi karo waxaa kamid ah xalaasha inuu quuto. Hore ayaan xalaqad kaga soo sameynay waan mas'alo khatar ah hadda anaga Soomaalina waa laga yaabaa inaan ku fiicannahay cibaadaadka soonka iyo salaada inaan ku fiicannahay, laakiin waxyaabaha aan iska sahalsan waxaa kamid ah inaan isdhacno oo aan lacag ku yeelano dariiqad xaraam ay lacagtan ugu soo gashaa. Waxaan sheegnay lacagtan waxay xaaraan ku noqotaa dariiqadii kugu soo gashaa adiga, maxaa yeelay jidkeedu waa cad yahay oo xalaasha ah. haddii aad jid ilaahay subxaana wa tacaala banaynin aad la martaa ama lacag aad ku kasbataa lacagtaas xaaraan noqonaysaa. waxaad quudi sadaqo kuma noqonayso, oo haddaad malaayiin soo xadid oo halkan malaayiin kale ka sadaqaysid sadaqo kuma noqonayso. in allaha tayibun laa yaqbalu ilaa tayiba, saasuu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam. ilahay waxaa xalaal ahayn ma aqbalo. waxaa kaaga sii daran calooshaada xaaraanta gasha waxay keeni kartaa biri ilaahay subxaana wa tacaala inuu cibaadadaada aqbalin. maxaa yeelay xaaraanta caloosha galayso oo aad ka fiirsanaynin maalka ama waxaad cunaysa inay xalaal yihiin iyo inay xaaraan yihiin, waxa weeye waxay keeni kartaa ilahay in cibaadada ka aqbalin. cibaadada waxaa ah ducada cibaado wey. masalan adducaa cibaada, maxaa yeelay ilahi subxana wa tacaala asaa dhahay udcuunii astajib lakum, baryuu yiri anigna waa aniga ajiibayaa. haddana waxaa sugnaatay nebiga alayhi salatu ka sugnaaday nin xaaraan cunay dacwada ilahay ducada maka aqbalayo. walidaalika mushkiladaha jira markaad aragtay Soomaali haddaan nahay dhibka aan ku jirno oo qabiilka iyo qurunka iyo ilmahan daraagiska raacay iyo dadka qurbaha joogo ama midiyaha isgelinayo, markasta hadday dib iskugu naqdaan waxaa laga yaabaa ilmahaas inay xaaraan ku fakatay ama gurigaas xaaraan laga quuto. xaaraanta Soomaalida inta badan waxaan nidhi laba nooc wey xaaraanta. wax cayntooda xaaraama sida khamra iyo khanziir, Soomaalida waxaas waa iska ilaaliya inta badan. ilaahay ninkuu dhumiy maahan inta badan ilaahay subxaana wa tacaala Soomaali haddaan nahay dadka khamrada caba aaday noogu yar yihiin, dadka khanziirka cuna oo iska xalaaleysta waa noogu yar yihiin. laakiin waxyaabaha aan iska ilaalin waxay tahay maalka aan kasbanayno Soomaalida ma ilaaliyaan. waxaan ka sheegnay xalqada horaato qaarna waxaan iri waxay rabaan inay been ay ku helaan been ay ku helaan lacagta ayagoo kasbanin oo ay u dhididin. waxay rabaan ama xukun ha raadsadaan ama kursi ha raadsadaan, wuxuu rabaa lacag inuu iska qaato wax dhaco. walidaalika dowladaha islaamka markaad aragtid arrinta oo ah rishwada iyo laaluush bixinta iyo hebel la laaluush iyo xaaraan wey. ninaa laaluush qaadanayo waxaa laga yaabaa nin xaqa sheegi lahaa oo xaq dulmi u jeedo inuu dulmiga ka aamuso. maxaa dhacay? lacagaa la siiyaa. waa khatar wey, waa shaydaanun akhras wey. lacagtaas marka la siiyo waxaa kaga sii daran xaaraan kusoo gashay. maxaa dhacay? xaq inuu ka aamuso lagu siiyo. marka xaq in aad ka aamustid lagugu siiyo wax sahlan maaha. xaqaas marka aad ka aamustay ama qofaa wuxuu ku leeyahay leenkan iisoo dhameey, xaq wuxuu u leeyahay rashwa looga qaatay. xaq weye wuxuu ku leeyahay waa iska sahalsadaan. waxaa arkaysa qof tukanayso oo masaajid aan ka bixin oo sadaq baxsanayso, haddana wuxuu ku leeyahay waxaan rabaa sheekh leenaan rabaa inaad dad kusoo xambaaro. maxaa dhacay? lacaga la qaataa. isu weydiis lacagtaas xalaal mi ku tahay? ma xalaaleysatay? walidaalika waxyaabaha aakhirada dadka ay naarta inta badan ku dagayaan xaaraantaas u quuto. maxaa yeelay xaaraanta markay kow caloosha gasho ama ilmaha ay ku quudisid waxay keenaysaa cadaabteeda adduunyada lagu arkayaa. kow waxaa la yidhi cibaado lagama aqbalayo, waa dhibaato weyn wey. labo waxay keeni kartaa sidoo kale inay qofka ay tahluuko ay ku jirto. maxaa yeelay qalbiga waa madoobaanaya xaaraanta markay ku dhacdo. nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu leeyahay tucdar fitnan cala alquluubi kalxasiiri cuudan cuuda. wuxuu yihi qofka tuuladana tuugnimada ayr ku bilaabanaysaa. maanta waxbuu leen u dhameynaya, waxbuu qaadanaya, maanta wax kaloo qaadanaya.
saas weye maanta dhan lacagaha waa la isdhacaya xaaraan aa lagu qaadanaya sabareedu lacag lagu qaadanaya shaqadiisuu qarinaya oo shaqeeya ma shaqeeyu leeyahay qofka waxaa arkaysaa marka beri asagoo dhahay wallahi dhibaa igu dhacay waa ilaahay waa bari miga ajiibaya maxaa yeele nabiga alayhi salatu wasalaam wuxuu leeyahay sacad ayaa u yimid wuxuu ku yidhi sacad nin caaqil u ahaa radia allahu canhu wuxuu yidhi yaa rasuul allah wuxuu yidhi udcu laha lii an akuuna mustajaaba dacwa ilahay waxaa iga baridaa ilahay markaan baryaba inuu aqbalo nebigu rabaa inuu u duceeyo ninkan ducadeeda ilahay aqbale leeg anaa waxaa rabo ilahay weydiinaye adiga waxaa ilahay iga baridaa sacad ilahay ducadiisa aqbala leh nebigu hal shardi ku xidhay marka wuxuu yidhi ya sacad atib madcamaka takun mustajaaba dacwa calooshaada cuntadaad gelinaysid cunadaada xalaal ka dhig ilahay ducada waa aqbala waa cibaado fiir wamaa asaabatkum min musiibatin fabima kasabat aydiikum dhibad kugu dhac waxaa adiga gacantaada ku keensata wey walidalika soomaali haddaan anaga mushkiladda xaaraanta khaasatan kasbiga xalaasha nina milyoneer naqanayo in la ammaanaa la rabaa mala dhahayo halkuu ka keenay lacagtaas asma is weydiiyey walidalika waxyaabaha naarta lagu galay waxaan yidhi qiyaamaha siraadka wuxuu leey nabiga alayhi salatu wasalam laa tazaalu qadama cabda xataa yusala can arbacin wuxuu yidhi qofka siraadka ma gudbaayo qiyaamaha ilaa 4 su-aal laga weydiiyey su-aasha ugu horeysa waxaa weeye can maalika maalkaaga halkey ka keentay min ayna laka wa fima anfaqta 2 su-aala maalka la iska weydiiyaa halkuu kaa soo galo waa dariiqa kasbiga ahayd wey iyo halkey ku bixisay maxaa yeele dada waxay ku bixiyaan dad in la laayo dad in la dilo dad in la sharqoolo qabiil in isjarsado oo qabiilka kale yidhaaho annaga soomaaliya waxyaabaha aan u degi la-ana maxaa kamid ah dulmiga ugu weynna haysta waxay tahay qabiil nin kasto afka la iskaaga qoslaa oo waxaa la leeyahay dad walaalanahna mahne markay qabiil kasta reerkiisa markuu u tago si gaar u faqa wuxuu leeyahay xukun hadday haastaan wuxuu leeyahay xukunka aan haysano annaga iyo naga dhicin oo astaabanayna dulmiga la isku ayidaa dadka kale dhan in la dhacaa la rabaa qolada kalena haddii xukunka haysanin waxay dhahan xukunka aan ridno aan ka ridno aan ka yeelno isku tashanaa marka goorma adiga marka afka wax laga sheegayo munaafiqnimo le waxda afka laga sheegayo wax afka ka sheegayno oo naafiq walidalika maxaa xukunka loogu dhagan yahay ama xukunka loo rabaa ninka nin qabta ma jiraa u dhahay xukunka wallahi ana haye 4 bilood sanaan Soomaali inta uu qaban karto ku sadaqaystay waqtigii ku sadaqaystay ummad inta isku keeni karo isku keen haddana aniga ma bara inaa soo sharxo halahana ilaahay ugu dhawaana maxaa yeelay wuxuu ogsoon yahay inuu dhimanayo beri maya ninkii sii joogan wuxuu rabaa inuu sii joogo kan oo ka tagan wuxuu rabaa inuu kusoo noqdo nin kasta inuu meesha maxaa marka sababtu maxay tahay waxa waa kasbi xalaala ko xaraana ku jiro bas wax xaraan in la kasbada la rabaa asalkeeda marka dhinacu fiiriskaas wey dhinaca labiska laftiisa xaraan wey oo dhaqanaya maxaa yeelay waxaa arkaysaa rag dahab xiran nin weyn arkaysaa dahaba u xiran ama guriga islaanta ilmihiia dahab u xiran yahay nabiga alayhi salatu wasalaam waa ka xaramtamay adahabu walxariir ragga waa laga xaramtameyey rag inay dahab xirtaan waa laga xaramtameyey haddana xaaraan ku socda marka beri waxaa laga yaabaa saas inuu ku dhinto nafti kaga baxdo asoo gaarig wato dahab u xiran yahay silsila dahab u xiranta inuu dhintaa laga yaabaa ama xariir shaati xariirka doom xariirta asalka laga hadlaya waxyaabaha la xaramtamey waxaa kamid a aaniyat aldahab walfida in wax lagu cuno xaramaad kasbi waxyaabaha xaaraantii kamid ah nin wuxuu ku leeyay wallahi ani galaas dahab ku cabay galaas qalin ku cabay ama boqor waa ama madaxweyne way xaraan ku jira idan dadka inta badan waxaa kamid a beeca la gadayo qiliga dada waxay u maleeyaan maalka dowladda xalaalba inuu yahay la dhici karo maalka dowladda xalaal inuu yahay u maleeyaa ma kulli xeelada ku sameystay anaa farsameystay anaa yeelay war qiyaamaha ka cabsa beri wallahi na gaajo u dhimanayni nabiga alayhi salatu wasalam wuxuu leeyahay ummadayda gaajo in eber kasiis lagama yaabo gaajo kastoo timaad waa lagu gurmanaa ilaah ummad gaala ilaah kuu soo saqiray dada waxay ka taajireen mucaawanaad dadka la geynayo abaarahan dhacay u jeedid dadna waa ku dhintaan ilaahay oofsada ajirshooda gashay dadna taajiray ku noqdaan laakiin ninka taajir ku noqda ma soo weydiinin maxaa dhahay hay-ada oo furan community haya asagaa maamula walidaalika waa la isku qabsadaa wasiirka maaliyadda aniga idhiib kan idhiib soomaaliya hata wasiirada maaliyadda hala baara kuwa wasiirada maaliyadda yimide soo baara kulligood lacagay leeyihiin halkoo ka keenay wasiirka maaliyadda muxuu dhaamaa wasiirka waxbarashada iyo kan xoolaha muxuu dhaamaa wasiir is leeyihiin laakiin maalkuu fadhiyaa kan wuxuu rabo sameynaya ninkii la hadla afka wuxuu gelinaa kan wuxuu gelinaa laakiin xaaraantaas ma ujeedo uu cunayo qiyaamaha marka asagoo qalla cunaa maaha marka qadka telefoonka
الو السلام عليكم شيقة waxaan ku weydiinaa ها riyada markii qofka ay ku riyooto iyadoo riyoonayso oo ay riyooto riyada noo kala fashil waxyaabaha riyada ay ku saabsan tahay ama riyo dhan waa salaada ka buree ما فاهمين ريد أنا سؤال هذا ما فاهمين riya habeenkii aa ku riyootid habeenkii ku riyootid أنا ريد فصل كذا ما أقان أختي riyo fasalkeeda maaha ها riyo oo adigoo raaxaysanayo طيب قفك أصله احتلامك وكريوت أصله أروساي ويلك وكريوت أما قبل يو نين لجيفت ده كريوته وحشرت أدي بيئكي مادان إني قباس واجب هذا وحكي إيماننا أن وحبكم واجب النبي عليه الصلاة والسلام نبي حديث كذا نبي ويديس النبي عليه الصلاة والسلام يتري إن الله لا يستحي من الحق إلى حق كما يحشوده وحيتري على المرأة قباس ما كواجبه وحور إن هذه ريوته وحور إن رأت الماء هذه بيت كواركته ودعاني دركي وتي ku aragto qubaysa ku waajibay laakiin dimbi ma laha qofka marfuuc qalam wax dimbi uu leeyahay ma laha markaa ninkana sidoo kale haduu wax oo arkin markaas oo mini ay qoyaan oo ku arkin sariirtana waxay noqonaysaa in wax laga reebin haduu qoyaan isku arkane ma tukan karo salaad ilaa iyo oo ka qubaysto laakiin xagga dimbiga qofka markuu jeefo waxay kamid tahay rufع القلم عن النائم حتى يستيقظ ninka hurdayo ilaa ka soo kaco wuxuu riyo ku arka loo ma haasto naam waaye naam dhinaca kale هلو قفكاس waa ka go'an filaya asagana naam idan waxaan ku jirnaa marka ikhwaani xaaraanta iska ilaalino xaaraanta dadka halo qofkaas waa ka go'an filaya asagana xaaraanta weyn oo iska sahalsanayn dadka waa xaaraanta oo lacagta aad ku soo galayso wey halo الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الو هلا كم مغلا تي في اسك قابل تلفونك يقول هذا. شيخ waxaan weydiin su'aal la xiriirto dhankani forex-ka weydiin karaa waa forex-ka maalin kasta la is weydiiyaa kaas waa weydiin kartaa ay akhi forex-ka dhowr jeer ma ka hadalno waxa kamidna maalka hadda la ilaalinaa waa xaraam kugu soo galaya mas xaraanta la iska ilaaliyo waxyaabaha waan laga digayo waxay tahay forex-ka noocyo badan uu leeyahay akhi marka forex-ka su'aal laga dhigo forex-ka xalaal miya xalaal la iskama dhigi karo maxay dad badan ka faa'iideystay forex-ka dad ka faa'iideystay dad waxay sameeyaan dadka lacag saaranay ribe qaadanayaan waxay ku leeyihiin lacagtaas keenso intaas anaga qaadanay intaasna waxaas deeta waa xaraan wey marka waxa fiican qofka markuu forex weydiinayo balse forex ma qof kasto ganacsi galayo diinteena waxay qabtaa nin kasto ganacsi galayo inuu ogaado ganacsigaas maxaa xaraan ee maxaa xalaal inuu ogaado oo qofka wax ku darsanayo uu weydiiyo uu yiraahdo sidee u shaqeysaa markuu soo qabto lacag saasa lagu sarifaa ilaa inuu xaq u leeyahay waxyaaga lagu shaqeynayo lagu sheego saasa la yeela habeenkii markii la barisiinayo forex-ka wuxuu leeyahay tabiid uu leeyahay ma waxa lacag la qaataa lacag ma ku koreyso brokerka ninka wax ku kabay shuruudahaas lama ogaado nina wuxuu ku leeyahay lacag meesha laga daldalanayo soo bax waxa la daldalanayo ma jiro marka qof kasta waxaan ku leeyahay su'aashaas dhowr jeer ay ugu soo noqotay waxaan leeyahay war forex-ka nuuciisa sheega lagu jiro waa nin sheegay inuu xalaal yahay laakiin inaad iska soo baxdid forex-ka iska soo tiraahid oo dadkii oo wax ku shaqeynayeen aad ogeensay habkay u shaqeeyaan dhibkeeda leedahay ninka kale halo aka go qofkaas dhinaca kale halo waxaan filayaa qofkaas asagana telefiinka markii aad soo wacaysaan ikhwaani dhowr jeer haddaad tv daawanaysa tv ka fogo iska gaabi maxaa yeelay codka tv-ga mar kasta waa dambeeyaa adigoo ila hadlayo aniga su-aasha hore jawaabteedu wiil ku jiraa marka waxaa dhici karta in asleed sheekh adigu kula hadlayo marka tv ka jeeso telefoonka ka hadal telefoonka iska maqlaynaa نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيء قاربنا يقول حتى. أساك الله هذا تلفونك يقول هذا. أوكي بس وحارب شيء إنهم كويديو لعلى جودة مسلمة ده وكلته مرك محل هذا ننك حوليس وكلته بربرنيسو من هذا السؤال كهذا سو كلا قيانة وكلا سو مسو كلا ده بقص قبل بدن وحاجة مركي لجورته أنت مالك دقالين لا نكان haruuta naag kale kursanaya guriga dhanay burburinayaan lacagta sida u dhameeyaan lacagtaas maxaa ku dhibo arrintii ma taas dulmi iyo waxay soo galaysaa waa dulmiga ka hadlaa kasbiga wax ku soo gala ka hadlaya
laakiin taas xaaraan waa laftigeeda laakiin taas waa dulmi waxay soo gelaysaa tabdiir qur-aanka ma ogolo in maalka la tabdiiri lagu cayaaro ma ogolo waxyaaba badan soo gelaysaa maraan ka hadli doona insha allah nacam dhinaca kale السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واكو سلامة شيخنا بارك سؤال أربعة إنك ويديو تفضلي سؤال هاي محل لها دقوشين كمركز سمينا يعني مثل معموينك وحيابها لها ما أعرفينه بهالكم فيها وحيابها لها فقبورة رفارح على أم الدولة دين ده الحكي قطع واحد دول هاي مجرب فيري waxa markii quraafaad yihiin waxa waa qofka haduu xanuunsan yahay quraana daawo amr quraankaas ruqi sharci ah qaado haday sheedaan yihiin quraanka ka adag laakiin in hebel la baxsado iyo hebel la kiciyo iyo foox loo shiday iyo wax la siiyo wax ka jira ma waa ma santahay dhinaca kale halo halo هلا شيخ عثمان وعليكم السلام ورحمة الله شو عمر شيخ عمر سوا يا اخي الحمد لله سيف فواتك يا اخي بارك الله فيك يا أخي هذه سيل خويا بركات في فيها لك هذا سيل هيرا وكوسينا أنا كوسينا هذا مركب برنامج لما صوع وهذا الكوسينا يا مركب برنامج لما لمبر كان لفتي يصوع ما عمرت انا شيخ محاوي ونغسلوا على النبي محاوي صلى على محمد اللهم صل على محمد محاوي صوماليا سلام شيخ عثمان سواي يا محاوي صوماليا شا ولا لحاجة ومسلمين ما الولبو يقول هشنو محاوي هشيس كان معنا اسمه محاوي نعم هشيسك ومركز واجب بني ادم كانوا اسخلافها ان سومالي دان دبانا هاستنو دعي دعاء نو بدي ان شاء الله دينك هلو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ سلمية شيخ واكو سلام بارك الله فيك سؤال وتا شيخ هاي ninka waxaas leeyahay shaad gacmo gaab ma gashi kariya oo labiis muruqiis balaanke oo narxan oo ka shaqeeyo wuxuu rabaa ka shaqeeyo ninka cawru leeyahay gacmo gaab iyo gacmo dheer kuma xirna murqana la isku raaco ma aqaan hadii casriga uu yahay nimanka murqaha hadii lagu raaco nimanka akhlaaq iyo wanaag iyo waxba la isku raaca laakiin ninka cawradiisa garbaha cawra kama ninka gacmo gaab haduu gashto cawradiisa ma banaynin laakiin hadii fitna la ka ratibmayso oo meeshu jooga meel dumar joogan oo fitna ay kamid tahay inuu astura wanaagsan oo afdal weey arxaan oo jooga nacam harqaaliin waa dib badan waa ogsoon yahay ilaaha fududay qadka dhinaca kale الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخو waxa rabina ku weydiiyo lacagta meeqaysta ku gaartaa lacagta meeqaysta ku gaartaa ingiriiska jooga sakada waxay ku gaartaa qiimaha oo 85 gram hadii lacag ah haysid laba shardi u ah sakada shardiga koowaad waxay tahay waa sanadka soo wareego waa maanta ay ku soo gashay maalintii kale sanadka kale ayaa ah iyo shardiga labaad waxa waa in nisaab gaarto nisaabkan waxa lagu qiimeeyaa markasta qiimaha dahabka hadii 85 hadii lacag aruurso mesela 3 kun camal ku aruur sanad haysay marka si aad u ogaatid inay zaka ku waajibto qolada dahabka gadaa waxa leedahay 85 gram imasa weey hadii ku yiraahan 3 kun weey adna 3 haysa waxay noqonaysaa zakada ku waajib hadii ku yiraah 4 kun weey adii zaka ma gaarin wali 3 kun iska isticmaal kartaa zaka kuma waajib okay marka dadka dahablaha weydiina 83 gram qiimaheeda taa waxa hadii ka badan haysid waa ku waajibtaa hatta ka yar haysid kugu ma waajibto نعم dhinaca kale السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ku salaamay aad ku salaama sheekh marka ugu horeysa laba su'aal aan qabaa ma garanay haye su'aasha koobaad waxa waaye meelaan ka shaqeynaa horta meesha waa meel isbitaal ma garanay marka isbitaalka neersi aan ahay marka dadka waxa waaye dadka oo waxa jira dad badan oo dumar ah oo lagu leeyahay mar dhar u geli ama magaranta u qube ama magaranta waxyaalo ka bedbedel magaranaysa waa garta marka diinta maxaa ka qabtaa waxaasoo kale adigoo raga yacni inaa waxaa samaysid oo shaqo kalena meeshii oo yar tahay inaa heshid maadaama xirfaddaa baratay su-aashaan ku weydiina xirfadaad barato laakiin rag iyo dumar waa u samaysaa dumar le u samaysaa kulli waa u samaynaa nacam waxaa ku dadaashaa indhaha inaad ka daboolato indhaha ilaahi subxana watacaala
cawrada markii na amray qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim naska sariix weeye naska wuxuu leeyahay adigoo meel joogo anaga hadda wadamada aan joogo naftigeeda Yurub markasta cawraan aragnaa laakiin النظرة الأولى لك والثانية عليك إذن وغض للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إن ده إنك كحرتت إن هسقط دينا عروض داوتت كقبه هوشة ما دام التخصص كأساس نقطة أقبتي لا بأس إن شاء الله لكن مركز كل ده إن العروض داون إن شاء الله بارك الله فيكم. نعم ألو قفكاس وكبوا عن فيلك حمه ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندنا وحودي ها ويدي ميان شيخ ها ويدي ويت اوكي ما ويدي سؤال هذا محيطك سؤال waxaan doonayaa nin baa qabay baride waa gartay markaas waxa anigu carruur ma dhalin naa kala guursaday dhul kale tagay anigu masruuf iyo mareen iyo ay waxba ima siiyo waa gartay markii ugu dambeysay waxaan wareeg anigu guri baan leeyahay gurigayga waxaan doonaa intaan dhiman in hor ilaah u bixiyo waa gartay markaas wuxuu igu yiri anigu xaq ilaahay si miyaad iga xarimaysa anigu xaq dheeran kugu lahayn waa gartay iska aamusay rubadii ma sii dirham ma sii bal maxay shariicadu leedahay imika inaan anigu gurigayga hor ilaahu bixiyo iska daayo hadalkiisa iyo in kale masalada asaga xaq uma laha saas inuu ku yira marka hore nin kastan xaqiisa la weydiinaya adi xaqi asaga ilaahay weydin doono waxba kaaga ma jiro qof xaq oo ka galay hadduu adduunku bixi waayo aakhirada ilaahay kaga qaadaya ilaahay subxaanahu wa tacaala caadil weeye rida geesaha laatan geesaha xaq loo qaado doona laakiin macnaheedu ma adni inaad dambaawdid maaha oo ah inuu ku yiri xaqa ay diidan tahay xaqaas aniga waxaygii shaqana shaqan jiray waxaygii baan ku dhisay maaha wixii biini haddaan kirada $250 ma hayo buu yiraahdaa 16 sano dirham isin muxuu xaq gulaya oo adiga markuu xaqaaga ka wayso maxaad furin ugu dalban weydi waxba kama qalto khali dambigan ku buuxina maxay iga galay may saas ma fiiri qofka muslimka lama rabo dambi la isku buuxiyo gabdhaha markay xanaaqaan waa mushkilo weey dambigay dadku ku buuxiyaan waxa fiican dambiga in la isku buuxinin oo muslimka si adiga dambi ku dhibaayo oo ugu baqda adiga qofka xaqaaga hadda waa ka gardaranaya saa sheegtay muddo ka maqnaa waxna kuma siinin meel kale iska dagay dambi weyn ku jira nimanka saas ilaahay ka cabsadaan maxaa yeelay qiyaamaha ilaahay subxaanahu wa tacaala cadaabkeeda ugu daran kan adduunyo ay ku faanayaan ay dhahay waxba ma furin waa ilaahay dhib weyn qiyaamaha kala kulmayaan ilaahay waa xaq soor qiyaamaha saas daraadeed ayaa waxa laga rabaa adiga gabadha haddii uu 4 bilood ninka ka maqan yahay oo marsuufna siinaynin shariicada islaamka waxay u banaysay inay fasakh dalbato oo tiraaho furiina raba kuma dimbaabaysa haday sabab kale ay ku darso ay furin ku dalbato waa dimbaabaysa sabab macquul ay gabdhaha ay furin ku dalbadaan laakiin tan oo kale way xaqay u leedahay adi marka xaqaaga adaa ka tanaasulo marka waa aamustay kamaan tanaasulo sidoo uga tanaasulo marka adaa ma fi biirad aamusnaataada dacway weydid maxay macnaheedu tahay raaliya ka tahay Soomaa halkan ka dacweeyay baan ka dacweeyay qatarteeda leedahay ilaahay taa ku dacweys ala ay taxal masalada aad tan ku qusaysa umaan asaga tiisa xaqaaga aad dalban kartaa haddii aad dhahdid ilaahay dartiisa u cafiin wax wanaagsan wey laakiin inaad adiga aad tiraahid aad dacwoonin dembi ha gelin adiga maxaa kuu soo horga qofka muslimka ah maalkiisu xaq u leeyahay ma sadaqaysan karaa su-aashaas adiga ku qusayso waxay qolaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi in allaha tasadaqa calaa thuluthi amwaalikum in allaha tasadaqa calaykum bithuluthi amwaalikum kama qaal wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam maalkayna wuxuu ilaah nagu sadaqaystay inaad 3 meel markii loo qaybay gurigaas haddii la qiimeeyo hadduu 300 kun yahay 100 kun waa sadaqaysan kartaa 200 ma sadaqayn kartid وثلث كثير حديثك كلا ساعد ساسوا وثلث كثير maxaa ninka kaliya ku dhaxlay walaalaha oo ku soo koriyeen oo iyagan xuquuq ku lahaa meesha ku jira hadaa wax dhalin adiga oo iyagan ku dhaxli lahaa walaalaha marka inaad xasad iyo cadowdin ma gasho waxa wanaagsan maalkan ilaahay ku siiyay wixii ilaahay ku banay ka sadaqayso 3 meel hal meel ka sadaqayso inta kalena cid dhaxlaysa cid ma ogan waxa laga yaabaa ninka hanta ku dhahaya aniga maalkayga ma hadlaysa caawado dhinta asaga yaa huba labadii ninka hormaray cid hubta ma laha marka ninku talagali kara ma laha anaa ku dhaxlaayo ama adaa dhaxlaysa cid ogsoon ma laha laakiin qofku waxa la rabaa diintiisa inuu raacsado oo ilaahay ugu dambeeyo wixii shariicada ay tahay dhimashadan ilaaha hayo hadda warku ku dhahay war qalad way laftigiisa oo ku dhahaya aniga maalkii ku cayaaraysa oo adiga hadaa dhimatidna adiga ma yaa ii qoray aniga hortaa dhinto nin kasta ajeesh cid ogsoon ma laha marka ha isku mashquulinin waxa is dhaxlay dadka maalka hadda ku mashquulin hebel ay dhaxla doon raacday kayeel waxa laga yaabaa inuu dhaxla asaga هذه نيكا دهيز واي دخلا هذه الحشاء laga yaaba maxay geerid cid kasta oo simanta jiri looma dhinto cudur looma dhinto da looma dhinto waxaas marka ilaahay u daa laakiin adiga wixii ilaahay ku farsamay
saddex meel maalkaa ka sadaqays inta kalen warkiisa ahaan ha u diidine shariica ahaan u yeel insha allah waay jazakallah khair baarak allah fik dhinaca kale now عليكم calaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu sheekh kheer allah ku siiye waxaan rabay inaan ku weydiiyo laba su-aalood oo isdaba jooga ma garat waa gartay ta koowaad mid waxa weeye gabar soomaaliyeed oo meesha nala joogtaba ninkeeda isku dhacsan yihiin oo maalmahan hooshooda ku jirnay waxaanan rabnay waxa weeye dhibaha ee ka tabanaysa waxaa ka mid ah sanadkii inuu hal mar laba jeer u imaado markii horena ay ku heshiiyeen markii dambena la xumaatay ma garat waa gartay laba dalna ay kala degan yihiin oo laakiin yurub gudaheeda ma garat waa gartay marka bal shareecadu maxay ka qabtaa in gabadha loo imaanayo labada sano sanadkii laba jeer loo imaanayo oo kale lix bilood wey lix bilood wey sheekh lix bilood ka badan kama maqnaan karo lix bilood haddii labadooda heshiis ku ahayn maka maqnaan karo afar bilooda asal ah marka lix bilood iyo lix bilood sanadkii laba jeer bay noqonaysaa macnaa lix bilood oo ka maqan yahay haddana lix bilood macnaa waqtiga la joogayna waqtiga la joogay waqtigina macnaha lixuu la joogaa ma ka wadaa lixna waa maka maqan yahay may lix bilood kadib buu imaanaya bil buu joogaya haddana waa maqnaan lix bilood kadib buu imaanaya bil buu joogaya taas heshiisay u baahan tahay haddii raalli iskaaga ahayn khatarteeda leedahay xaq uu galaya ninkaas okay waa gartay sheekh taas waa gartay tan labaad waxa weeye waa aragtay waddankan yurub laba markii la isguursado dadku tan islaamka isku mehersadaan waxaa jira system dowladeed oo la maro oo laiska diiwaangeliyo ma garatay markii laiska diiwaangeliyo systemka haddii aan ku kala tagno isku furno laakiin tii islaamka aan weli ku kala tegin gabadhaas ma furmaysaa mise waa qabnaa weli waa la isqabaa horta tii islaamka maxaa ula jeedaa adiga waxaa ula jeedaa qofka marka aad mehersato oo kale shareecada islaamka nikaaxa aad ku mehersato su-aasha aan ku weydiin waxay tahay furiinka islaamka muxuu yahay see laysku furaa islaamka macnaha furiinka islaamka qofka inaad tidhaahdo dalqadaasaa iga furan tahay iyadoo markhaati hadduu kii madaniga saas ka yidhaha marka ereygaas hadduu ku dhawaaqo oo ka yidhaaho gabadhaas waan furay hadduu yidhaha waa furmaysaa idan ha laakiin waxaan ka wadaa tusaalahaan ha tan hadda maxkamadda oo kale maxkamadda warqad furiina loo qortaa macnaha intaasaan ku furay warqadda waa saxiixaysaa waad diraysaa may warqadda hadday ku qoranta xaaskayga waa iga furanta akhi si fiican dhegeyso islaamka furiinka kelimada lagu furo maahane kelimadii gabadha ku furuntaa kelimadii ku furuntaa dhawaaqa furiin ku dhawaaqdid tan islaamka iyo tan kalena waa israacayaan kalama furmaan haddii aad warqadda ay ku qoran tahay islaantaada ma furtay waa furay haddaad tiraahdo waa furantay markaas aad rajacta soo dhadaartay agtooda ka fur haddii ama marba hadda ereyga furiin ku dhawaaqo haddaa laakiin magac sarbeeb a ku dhawaaqday waa kala tagnay iyo ma qabo iyo waxaas hadday tahay weli niyadaaday u baahan tahay niyadaaday u baahan tahay inaad furiin ujeedin mise ula jeedin laakiin ereyga furiin haddaa ku dhawaaqtay waa dhamaatay okay laakiin qofkii haddii tii oo maxkamadda waddamadan yurubta ah oo kale maxkamadda markii gabadhu dalbato warqad baa ku imaanaysa warqadda waa saxiixaysaa ama waa diidi kartaa labadaba haddii aad diiddo maxkamaddu iyadaa go-aan gaaraysa oo furitaan samaynaysa ma ogtahay marka furitaankaasi ma furitaan saxa mise furitaankii saxda ah weli waa dhiman yahay maya akhi haddii aad waddankan sharcigooda aad qaadateen hadda majaamicda fiqiga arrintaas lagala hadlaa maxaa yeele gabdhihii xuquuq badanaa ka dhuntay marka xuquuqdaas si loo ilaaliyo dadka iskule ninkan u fiican gabadha xaqeeda in laga qaado ninka adduunya u fiican lagaga qaado intii aakhira ugu qabsan lahayd waxay yidhaahaan furiinka oo wadamada ajnabiga waa dhaca waa gartay nacam marka hadda marka furitaankaas waa dhacaya way noqonaysaa laakiin adiga markuu dhaco xaq u leedahay hal dalqay ridi karaan soo ma dhici karto hadhow rajactaa dhihi kartaa islaamka ahaan rajactaa dhihi kartaa okay sheekh waa fahmay khayr allah ku siiyo dhinaca kale halow الو السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هل سؤال ربي ويلان مر هore ku weydiiyay iyadoo asagoo nin oo naaga ka hadlay yani oo nurse ahay anigana iyadoo la mid ahaan ka hadlay laakiin keera ahay basanti hay marka naag anigoo oo keere hadii la ii diro nin oo jiran oo sariis ka soo degi karin ama waayeel ama markin oo adiga aniga waxaan waa caafimaadka u shaqeynaa Soomaha ma ka shaqeyn karna laba kala tahay ragiinan oo keerka iska waayelada hayo iska tuurtuurto oo aan tuurtuurisho maani waxaan ka hadlayaa fiiri macna waxaan ka wada iska tuurashada waxaan u jeedaa professional ma ihidin ninkan waxa wax barashadiisa dhakhtar oo soo noqday nurse oo soo noqday wuxuu soo bartay takhasuskiisa saasa su'aashiisa anigana keera ahay level 5 ahay ama keera profession kayga wax kale kama shaqeyn hadii profession kaaga uu yahay waxaas uu yahay
qofka ileen meel uu naqdo ma laha wuxuu mustaqbalkiisana soo geliyey hadda lama dhahay ka har marka saas daraaddeeda daruuradaasa loo fiiriyey qofka waxaa la yidhi indhaha ka daboolo laakiin dadkan kale islaamaka iska qaado maanta dhan keera ka shaqeeya dhahayo meelaha maro shaqada heli karaa weli bal waxay heli karaan way kala dooran karaa fiir ninkaas isbitaal u shaqeeya hadda isbitaal u sheegay laakiin keeraha isbitaal way ka shaqeeyaan qofna waxa weeye waa kala dooran kartaa waxay kala yihiin community care iyo waxay kala yihiin hospital care iyadana career waay ma fahantay maya waqti kala qaad fiiri qolooyinkan annaga hadda waa joognaa waddanka waan naqaanaa mugta qolooyinkan waxay dhihi karaan dumar le qaada waa dhihi karaan laakiin ninka oo dawladda u shaqeeyo oo neerska ah ma dhihi karo ma dhihi karo adi diinta maxay ka qabtaa ii sheeg aniga ku sheegay wixii asalka waxaa weeye gabdhaha inay gabdho u shaqeeyaan raggan rag inay u shaqeeyaan asalka taas wey wixii ka baxsan daruuri baaba daruuri ay galeen qadka dhinaca kale السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخو سؤال عن قبل. ها. وحيتها لو صون على يقول لي هاي. ها. مركا دخاتيرك waxay dhaheen masoomi kartid. waa garta. dhiig la'aan ah ku hayso. waa garta. marka see gudi karaa marka. soo may fidya bixinay hadaa soomi karin muddo may ku xadadeen ku dhahay muddadaas ma soomi kartid ilaa dhiig ka heshid kaliya miya maya uuraan lahaa waagaas haa hadda laakiin dhiiggaaga waa fiican yahay anemiyada waa ka baxday ya hadda anemiyada waa ka baxday soo ma haa hadda mar hore ahayd soo qalay soo qalaynaa miya bes qalale laga rabaa bes haye nacam dhinaca kale su-aasha gabadha haddaan ku laabto intaan dhinacan gelin haddii muddo badan ay soo dhaaftay oo iyadoo gudi karta ay soon kale ku dhashay soonka dhashay kafaara labadaas biri la maskiin iyo qaladaa laga rabaa laakiin haddii soonka hore ahayd oo ii jiraneed soonkan kale intaa la gaarin qalale laga rabaa dhinaca kale halow sheekh waa soo laabtay waxa waa yar ashigda hore ku weydiinayay oo khad ka go'ay haye way maqlaysaan filaya ha su-aasha labaada ku dhindhid su-aasha labaad waxa waaye salaad bay ku saabsan tahay yani xilliga shaqada galayno salaadii oo xoogaa ka dhiman yahay waay ma garanaysa haye marka salaada xoogaa ma soo hormarsiin karaa ama salaada maqribka iyo casarka oo kale ma isku tukan karaa anigoo markaa duhurka tukadoo kale maya labadaba samayn karta salaada waqtigeeda gaarin lama tukan karo maqrib iyo casrina iskuma jamcin karo jamciga waxaa iskale duhurka iyo casr asal ahaan iyo cishe iyo maqrib ayaa isleh laakiin casr iyo maqrib la iskuma jamciyo marka waa inaad sugtaan ama meesha shaqada ku jirtaan ku tukada shaqada haddaan la helin ka waran oo bareegi waxaas oo la isku adkaynayo wallahi horta cabsida ilaahay iska dhaaf horumariya inta dadka cabsan lahaydeen dad badan oo su-aalahaas na weydiiyey markaa la talinay waxay leeyihin anaga iska cabsanayn maa salaad waan ila ogol yahay ninka ilaahay caabudayo waman yataqi illaha yajcal lahu makhraja ilahay makhraj uu nii furaa marka baroobeya hadday marka gaari weyso oo casirka uu kaa tegayo marka waxay noqonaysaa inaad markaa duhur tukatid casri ah soo hormarisid duhurka iyo casrka markaas inaad isku dartid noqonay dhinaca kale halo marka inaad duhurka iyo casrka isku daray noqonay ha laakiin joogto maaha markay arrinta adkaato ma asbuuc sheekh asbuuc waaye asbuucna waa caadi asbuucna waa ma garanaysaa asbuuca markaas casrka xilliga dambe waa dhibaato haddaad ogtahay in casrka waqti aad helaynin waa soo hormari kartaa taqdiima ku samaynaysaa insha allah hayo waa maadanta sheekh nacam dhinacan kale halow halow halo ha haa haye soomaha haa wala sheekhan rabaa inaan asaa kula hadlayo su-aashaad weydi sheekh tv-ga iska daaf telefoonka igala soco halo may maqlaysaa sheekh waa ku maqlaa sheekh waxaa laygu leeyahay ilaa 8 rabadaan oo isgaartay maxaad gaaray 8 rabadaan maxaa samaynaysa intaas intaas waxaa samaynayay mar umul aan ahaa mar ilmaan caloosha ku waday xilliya waan xanuunsanayay laba soon inta udhexeysa faaruq ma naqata waqtigaa gudi karti kusoo martay may waqtigaa gudi karti kuma soo marin miya ha haddii kusoo mar qalale lagaa rabaa keliya markaa waan wada qaleeyaa kulli waa lagaa rabaa soo qaleynaysaa nacam dhinaca kale halow halow
هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وويل سوماليات oo jooga qaaradan Yurub. Dayib. Waxaan rabay su'aal ah inaan ku weydiiyo xaas ayaan leeyahay mar walbana waxay macnaha tiraahdaa ifur oo macnaha meel aan loo dayin iyo yacni oo ilaa hadda sabab aan u haynin taas arrinkaas diinta maxay ka qabtaa qalad wey gabadhaas ilaahay inay ka cabsato waana waxaa sheegaysa hadday jiraan waxaa ka sheegaysid anaga gabadhaas waxaa ka sheegta adaa ogeyadii rabbigaaga laakiin anaga gabdhaha caam ahaan u sheegaynaa gabdhaha muslimka nabiga calayhi salaatu salaam xadiisa ka sugan oo dhahay ayuma imra'atin gabadh kasto haweeney kasta oo ninkeeda weydiisata furiin laa ba'sa oo sabab la-aan weydiisata wuxuu leeyahy jannada carafteeda xataa waa ka xaaraan inay gasho iska dhaaf carafta ka xaaraan marka gabadha asbaab sharci oo sharciga u baneeyey inay furiinka weydii karaan laakiin waxaan iska socdo oo asbaab sababta aan lahayn naari ku galaya marka ilaahay ka cabsato gabadhaas wax kale ma dhahin nacam dhinaca kale ilaa hadda uma hayo su'aal kalena waa raba inaan ku weydiiyo weydi halo waa ku maqlaa weydi su-aasha qofkaas su-aasha kale waxay tahay يعني waxaa ka shaqeeyaa meel oo muxuu ahay sheeg waayeelada oo maaragtay lagu baxnaaniyo marka xirfadeeduna waxay tahay waa tan aa soo bartay yani inkastoo xogeyna aa ku shaqeysto yani arrinkaas diinta islaamka maxay ka qabtaa akhi rag haddaa u shaqaynaysa laa ba'sa biha dumar waxaa loogu shaqay karaa daruuro keliya ninka daruuro haysa oo waan dhowr jeer aan ku celin arrintaasaan ka hadalnay ninkaasoo kale wuxuu isku daya inuu indhaha ka qabsado oo ka dadaalo gabar yar hadday tahay waxa aad tahay masalada cawrada waa waxa la diidayo gaal muslim uu shaqayn karaa iyo muslim gaal shaqayn dhib ma waa loo shaqayn karaa waayeelna waa loo shaqayn karaa laakiin mushkiladu waa yeelada gabdho badan ayaan aragnay dhibaatada ka soo gaartay keerkan laga shaqaynayo wuxuu ku leedahay ilmo xanuunsan madaxa ka xanuunsan ilmiyaa markaa damcayo ninka raganimadiisu waa ilcadta hadduu madaxa ka xanuunsan yahay oo doqon uu yahay laakiin doqonka rag waa yahay weli waxaasaa imaanaya marka waxaasaa loo diidaya marka lacagta qaadanaysa inay xalaal ahaataa markaas la rabaa rag ha u shaqeeyo gabadh yar hadday tahay oo niman dhalinyar loo geeyo ma ka shaqayn karto weli khaasatan xaaraanteeda waa sii adkaanaysa maxaa yeelay fitankeedaa badan gabdha yar yar ama gabdha yar markaa dhahay islaamo damac leh oo weli nin damac ka leh ayaa waxay ku leeyihiin nin cunug dabaalan qaadnaa ama dharka ka bedelnaa cawradiisa arkaysaa waxbay samaynaysaa bini aadan aa tahay fitan badanaa ka ratamay gabdho badan ayaa ku fitnoobay sidaan anaga taariikh aan ku hayno iskoorka marka baaba saddex dariica laakiin ninkii daruura hayso oo iska adag waa laga yaaba culimmada si gaar inay uga fadwooto marka dadka way xidhan isku jamcinayaan waa mushkilo weyn nacam dhinaca kale halow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu shiikho waxaan ku weydiinaa ramadaana i dhaafay anoo xanuunsan maalmihii i dhaafay ma sixi kare marka sideen u qalay karaa intaad umalaysa maladaa lagu dhisaa wax intaa u badinaysid intaa u badanayaan soomaysa hay asalaamu calaykum sheekh waa mahadsanta calaykum salaam dhinaca kale halo sheekh abdalla dilay weydi salaamu calaykum تيفيك اسكا تليفونك يقرصوا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شي أسأل عند أخي كيفك الحمد لله الحمد لله شي أسأل وحن كويدينا وحوي وياكي اللهم تعالى أجو قارد يرب أسي حاسي ساعة كلا تجين مر لبعض كلا تجين مر لبعض شكل تستغفر مر لبعض وحوي دا شي زويري دا قويل دا قبر دا شو فرنتاي أي marka gabar ayadana waxay tiri ima dhihina wuxuu ii hadaa dhashidu ay furan tahay taas isku haystaa marka dalqadaas marka asana wuxuu leeyahay ani waxaan dhahay hadaa gabar dhashidu ay furan tahay waa iska dhahay afkayga soo baxday taasaan dhahay ma dhihin waa iga furan tahay iyada marka wiilay dhashay gabar ma dhalin kiisa la yeelaa wax markaati ma lahaya ya markaati ma jira markaati ma jecnaa markaat ana ii soo sheegtay marka asa wareystan asa wuxuu maya markuu dhahay qof la joog ma jiro qof ma joogmay labadooda kiisa la yeelaa hadday gabar dhashay ka furmaysaa ama gabar mar hadda ka bacdi ka furmay gabar dhaco ama waa dhamaad
may markay dhashay gabar maa ka furmay ha may dhashay wiilkii dhashay waa dhacday markaasoo dhe uuree waday uurkaan muu yiri maxadid mase wuxuu yiri weligeed uu yiri uurkaan muu yiri weligeed ma dhihin uuree waday ha uurkaas day wiil dhashay ma ka furnin weli okay may ka bacdii isfureen ee kala tageen haddana dalaqad markay kala tageen ayadu waxay tiri 3 dalaq warkaasay waa dhamaatay saddexdiin waxaan isku may taa aniga dambe isnoo dhaaf tan hore hadda aad sheegtay ma furmin asaga gabar ku xujeeyay uurkaan gabar dhashay gabarna ma dhalin ilaahay ma siinin ma furmin marka waa soo naqsi karaa soo naqshada axkaamteeda in loo sharxo culimada u baahan tahay la weydiiyo say wax u jiraan laakiin aniga tan ay weydiisaan kaaga jawaabay ha may waa ogaa tolo waa ku fahansanad baarak allah fiik dhinaca kale السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الله أكو حفظيه. آمين جزاك الله خير. أكو ودي لها سؤال. ها ويدي. كي جبنا عدك واقواي. وعلي. دي لو أسكت. عدك واقواي ما قان علة ذاك وهايسته ما فاهمه سيفع مو فاهمه. الو الو ميا مقلسة هذا وكم مقلها اوكي waxaan doonayaa sheekh inaan weydiiyo bari hore 40 sano taqriiban horteed qof yar aan sharci ahayn ba yani waxaan arkay hooyadii inay doonayso inay disho markaasan qof doonaya baan ka qaatay qofka waxaan anaa qaadanaya laakiin markaas anigu qof yar baan ahaa maybe 20 baan jiray mid aan caruur lahayn baa tiri si aniga tii baan siiyey almaamiyadu si fiican bay u korisay taas ma dambi baan ku qabaa mise maya ma hooyo dil rabtaa ka qaaday maya hooyadii ma ha hooyo kale dil rabtay maya tii dhashay dil rabtay cunuga ha de ma doonayso wuxuu yani غير شرعي غير شرعي waa marka adaa ka qaad qof kale waa koris ha نعم wax fiican sameeyay nafa badbaadis laakiin qofkaas waa inuu ogaataa ma ka war baan yani leeno anigu markaas waan yaraa takhtar baan ka shaqayn jiray meeshan takhtar bay ahayd macna qofkaas ma ogmay cunugiisa ma u maleeyaa ما سيفي أنا يدو بوحي شيء ما كلا بدو دوي دنتين با ما مو شاكتو عنو قاينا إذا دالين مو قيد ها طيب و تبا قف كاسو قال إنه عنو بباديو لكن هوي منقر هدي نوجيس هوي الرضاعي ونقنيسا وحما عنو مركز هوي داس وحمل منوجين كرتي أنا ما سيفي عم بوحي شيء لا عيدين عنو دادي شيء مسو هاي مرق وايرا سوما وحما ناس ما كيف ما ولا شيء وأنا قلت تختارك أنا بكدلي أوكي إن قبل أسيس أمول ما يد وحمي نوجينيس ما عرور واوين بيسكله ما عنقيده كله توا إحسان لأكورسي لكن عنقيده ما عنقد ما لكن ده أنا قحن سليم مدام بيبان سمية يعني ور بيها ما هدي هويدا كحدي دين بيا سميسي أو ما كما حدين هدي لك إذا يكون يبت إذا دين بقش هذه ما ثبته هو واحد هنا كتخلصان حيوة بنديل إنه مرة بنالكم سبحان الله ومشكلة هاي استوقف قصو دين بقلا ودين بكوين قلا هذا المرلبات نسأل الله السلامة والعافية مركا واحد دين بكم وليد إن شاء الله إن شاء الله وعي جزاك الله بارك الله فيك عن فيها سؤال شاس أود بيسي وقتي قباه وحن قلد نفتي الشيطانك أهاتي وحن سحاني توفيق إلهي سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته